madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu magacaabid isku bedel ku sameeyay xubno kamid ah xukuumaddiisa. Wareegtada madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray waxa uu dhigneed sidan: markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintani u magacaabo xilalkan. Ismaan Jaamac Aadan Iimaan, wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska; Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga; Faadumo Cabdilaahi Cumar Diiriye, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka; Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ah wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayuu madaxweynuhu u magacaabay in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Sacad Cali Shirena waxa uu madaxweynuhu u magacaabay in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame Dhagaweyne, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniskana waxa uu madaxweynuhu u magacaabay in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. Maxamed Daahir Axmed Furre, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, isna waxa uu madaxweynuhu ka dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Axmed Abubakar Maxamed Yuusuf, agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga, ayuu madaxweynuhu mar kale u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. ugu dambeyn madaxweynuhu waxa uu wareegtadiisani ku sheegay in wasiirka hore wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi Raage iyo Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax oo ahaa agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta ay ka mid noqdaan xubnaha guddida tacliinta sare ee qaranka. Waa markii u horeysay ee tan iyo intuu xilka madaxtinimada dalka qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabid isku bedel ku sameeyo xubno kamid ah xukuumaddiisa. Faad Axmed Kaariye, Bulsha TV, Hargeysa.